السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale cusub. Saaxiibayaal, caawa waxaan idin hayaa sheekada waxay ka sheekeynaysaa ama ay ka hadlaysaa haweeney xaasid ah, haweeney dilaa ah oo xitaa gacanteeda ku dishay awlaadeeda iyada dhashay. Marka qoftan sheekadeeda iyo waxay tahay dhammaan waxaan ku ogaan doonaa qisadeena. Marka ku soo dhawaada qisadeena caawa. Haweeneydan magaceed waxaa la yiraahdaa Mary. Dabcan qisadan waxay ka dhacday dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Mary waxay rabtay in ay guursato markeeda shanaad kadib markuu dhintay ninkeeda afraad. Macnaha meesha waxaa kaaga cad Mary in ay hore u soo guursatay 4 nin. Haddana waxay rabtaa oo ay diyaar u tahay in ay guursato ninkeeda shanaad. Marka waa arki doonaa 4 nin sababtay u soo guursatay, meeshay aadeen, ninkan shanaad xaalkiisa, dhammaan waxaan ku ogaan doonaa sheekada. Marka intay isku diyaarinaysay guurka ninkan shanaad iyo arrimihiisa, waxaa sikadiisa ku soo baxay wiil 7 jir ah. Wiilkan 7 jirka waxaa dhalay ninkeeda afraad oo geeriyooday. Macnaha wiil iyada dhashay ma ahan, laakiin waxaa dhalay ninkeeda geeriyooday, wuxuuna ka dhalay naag kale. Wiilkan wuxuu la noolaa ayeeyadiisa. Kadib markii ayeeyadiis dhimatay, qof kaloo loo geeyay waa la waayay, sababtoo ah adduunka cid u joogta ma lahan. Aabihiisa wuu dhintay, ayeeyadiisana way dhimatay. Markii magaalka la fiiriyay, waxaa la ogaaday Mary ma ahan qof kale in aysan adduunka u joogin. Maryna aabihiisa ayaa qabay. Marka waxaa la wiilkan loo geeyay Mary. Marka Mary wiilkan marka loo keenay, waxay dhahday bes ma awoodo in aan guursado, sababtoo xilliga wiilkan loo keenayay waxay isku diyaarinaysay guurkeeda shanaad inay ninkan guursato. Laakiin markan waxaa loo keenay wiilkan. Kadib waxay dhahday ma awoodo inaan guursado, cunugana igu soo biiray, waa in aan noloshiisa ogaada, barbaariya, ka warhaya. Marka ninka guursanaya waxay dhahday niyow xoogaa isug, xaalad sidaan ay noqotay. Marka ninkii wuxuu dhahay maya waa isguursaneynaa. Mary waxay dhahday xoogaa bilooyin xitaa isug. Ninkan wuxuu dhahay bilooyin hadda ku suga iyo haddana had isguursan isku mid waay. Sababta wuxuu dhahay haddaan bilooyin ku sugo cunugan sanad ma ugu darsamin, 2 sano 5 sano ma ugu darsamin, waxuu iska beddelaya ma lahan. Marka wuxuu dhahay bilooyin had isku mid waa in isguursano. Kadib Mary waxay dhahday isug yaaqay wax yar markaa soo dibdhacayo, wax yar isug. Adiga ninkii wuxuu dhahay waayahay. Kadib maalmaha ka mida, Mary waxay gashay mid ka mid isbitaalada, iyadoo cunugii yar gacanteeda ku wado oo qeylinaysa oo dhays badbaadiya, dad ma jooga miya. Iyadoo qeylinaysa waxay gashay isbitaalka. Mary waa laga qabtay cunuga, dhakhaatiirta ay isugu timaaday. Waxay arkeen cunugan oo qandho daran hayso, xitaa ma ahan qandhadii caadiga maahan. Waxay arkeen cunugan oo heerkulka jirkiisa uu aad u sareeyo. Adiga waxay dhakhaatiirta ordaanba way awoodi waayeen inay cunugan badbaadiyaan. Wiilkii yaraana sidaa ayuu ku dhintay. Laakiin markuu wiilka dhintay kadib, waxaa dhimashada wiilkan ka shakiyay mid ka mid ah dhakhaatiirta, oo wuxuu dhahay waxaa shaki iga jir dhimashada cunugan, sababtoo wuxuu dhahay cunugan heerkulka jirkiisa aad ayuu u sareeyay, mana ahayn qandho caadi oo qandhadii la kasaay ma ahan. Marka wuxuu dhahay waa in la baaraa cunugan, oo xitaa wuxuu dhahay waxaa macquul ah in sun iyo waxyaabahaas la siiyay oo cunugan sababtay inay qandhadan badan qabato, kadibna uu sidaa u geeriyoodo. Adiga wuxuu u sheegay booliska, oo wuxuu dhahay meydkan hala baar intaan la duugin. Kadib booliskii waxay wadeen cunuga, waxayna soo qabteen Mary. Kadib Mary waxaa la dhahay cunugan hooyadiisa miyaa tahay? Waxay dhahday maya, oo waxaan ahay xaaska aabihiisa. Marka waxaa la waayahay aaway aabihiisa. Waxay dhahday aabihiisa wuu geeriyooday.
kadib waxaa lay muxuu sababta ku noolyahay maxay tahay cunugan. waxay dhahday cunugan aniga ilama nooleen oo aniga mahayn, wuxuu la noolaa ayadiisa, markay dhimatay ayaa laga keenay oo wax kale ma jiraan. booliska waxay dhaheen waayahay, adi ugu dambeyn waxaa soo baxay natiijada baaritaanka meydka oo cunugii waa la baaray ma aho. cunuga marka la baaray waxaa soo baxday jawaab aad iyo aad u yaab badan, jawaab cajiib ah. oo jawaab maxay ahayd marka? waxaa la ogaaday cunugan dhimashadiis in ay sababtay in uu cunay maada lagu magacaabo zirniiq. maadadan zirniiq waxay ahayd maada lagu sumoobo, xitaa lama mamnuuca in la isticmaalo. insha Allah maadadan waa ka sheekeyn doonaa qisada dhexdeeda. marka maadadaas ayaa waxaa la cunugan maadadan ayuu ku sumoobay, sidaa ayaana kaliftay in uu dhinto. kadib booliskii waxay ku soo jeesteen Mary. waxaa la dhahay Mary, anaga qofka kaliya aan tuhmeyno waa adiga. cunugan siduu ku cunay daawadan, macnaha in uu daawadan ku sumoobo maxaa keentay? Mary way inkartay, waxay dhahday wallaahi aniga ma ogi, ma ka warhayo cunugan waxa ku dhacay. cunugan aniga waa soo koriyey, waa soo barbaariyey. xitaa waxay dhahday guurkeyga isaga dartii aan u dibdhigay, waa guursan rabay. xitaa weydiiyey wiilka aan guursanayay, waa ka xitaa weydiiya, aniga waxaan shaqaan ku leeyahay ma lahan. kadib booliskii waxay weydiiyeen wiilkii, wuxuu dhahay waa sax, aniga iyo Mary waxaan ku heshiinay inaan isguursano. laakiin sikadiisa waxaa soo baxay wiilkan oo uu ninkeeda hore qarinayay. wiilkan waxaa haystay ayadiisa, markay dhimatay kadib Mary ayaa loo keenay. marka sidaa ayuu u dibdhacay guurkeena, oo Mary warka idin sheegtay waa war saxan. kadib booliska waxay ku laabteen Mary, waxay dhaheen Mary, hadal, cunugan suntan siduu u cunay, macnaha sababtuu u samoobo maxay tahay? ilaan adigoo kula joogay adiga og, oo wax noo sheeg ayay dhaheen booliska. Mary way inkartay, waxay dhahay wallaahi aniga waxaan ka ogaay ma lahan, cunugan waxaan ku sameeyey ma jirto. marka arrintan ayaa kaliftay in dib loogu laabto Mary nolosheeda iyo taariikhdeeda hore. waxaa la qoftan warkeeda u isbixin laayahay, marka waxaa la dhahay taariikhdeeda iyo nolosheeda hore Mary dib ha loogu laabto. marka saaxiibayaal, sheekada Mary maxay tahay? arrinteeda 4 nin ay soo guursatay oo dhammaantood dhinteen, awlaadeeda ay dishay, cunugan hadda oo waxaan ku samoobay inkareyso. marka Mary sheekadeeda maxay tahay? marka saaxiibayaal, wax walba hadda ayaan ogaan doonaa, si fiican ila socda. horta marka hore dhacdadan ama sheekadan Mary arrinteeda iyo waxyaabahaas waxay dhacday 1872. waa xillig wax walba la ogaan doono Mary qofkay tahay, nimankeeda dhintay, sheekada caruurteeda, waxaas dhan. macnaha dhacdaas waxaa la ogaaday 1872, macnaha waa sheeko hore. marka Mary markeeda hore waxay ahayd kalkaaliso, oo shaqadeeda waxay ahayd qof kalkaaliso ah. kadib shaqadaa way ka tagtay, waxay noqotay qof dharka tosha. kadib waxay isguursadeen nin lagu magacaabo William. adiga guurkooda kadib markay isguursadeen, bilowgiiba wuxuu ilaahay siiyey awlaad. waxay dhaleen 4 caruur, laakiin 4tii caruur way geeriyoodeen, macnaha way dhinteen. kadib Mary way murugootay, way iska oysay. waxay u timaadeen ninkeeda oo waxay dhahday, maxaad noloshaada caymis u gelin la'dahay? oo noloshayda, noloshaada, nolosha caruurtaada waa inaad caymis gelisaa. sababtoo waxay dhahday waa ujeedaa awlaadeen dhan waynay geeriyoodeen. marka waxay dhahday xitaa wax aan ka faa'iidno caymiska markaan galno, xitaa markuu qof naga dhinto lacaga ka helaynaa meeshaas, faa'iido badanaa nooga soo bixayso. xitaa waxay dhahday haddaan wax weyno wax kale aan ka faa'iidno, adiga ninkan ayaa waxay kala dhicisay in ay caymis galaan si ay hadhow ugu baxsadaan. ninkana fikirka wuu soo dhaweeyey oo wuxuu shirkadaha caymiska u tagay, wuxuu caymis geliyey noloshiisa, nolosheeda iyo nolosha caruurtooda oo dhalan doona, sababtoo hadda caruurtan wayba geeriyoodeen. kadib
waxay dhaleen 3 caruur kale. adiga wixii la joogaba waxaa geeriyooday ninkeeda iyo 2 ka mid ah caruurta. hal ayaa badbaaday, laakiin 2 ka mid ah caruurta iyo ninkii way ku daayeen. sababta dhimashadoodana waxay ahayd waxay ku sumoobeen maadadan zirniiq. markay dhinteen, Mary way baxday, waxay u tagtay shirkadda caymiska, waxay ka soo qaadatay lacag. sababtoo ah qofka duu caymis galo oo uu qof ka dhintay iyo waxyaabahaas, lacag ayuu wuxuu ka helaa shirkaddu caymis galay. marka Mary lacagtaas soo qaadatay, lacagtaasna waxay ku heshay dhimashada ninkeeda iyo 2deeda caruur. kadib markii lacagta soo qaadatay, marka hal ayaa helay, halkii way qaaday, waxay u geysay hooyadeed. iyadan lacagtii waxay bilowday inay isaga baashaasho, isaga tumato, meesha rabtay ka dhacdo. haddana waxay baratay nin labaad oo lagu magacaabo Johnson. adiga magac uu ii maqan yahay, Johnson u badan, laakiin kullee magac waaye. wiilkaas markay sanad isqabeen, sanad wax ka yar markay isqabeen, isagana wuu geeriyooday. laakiin wiilkan wax caruur uma dhalin, keligii ayuu geeriyooday. isagana wuxuu ku jiray caymis, macnaha iyadii isaga waxay galeen caymis. macnaha Mary nin walba gulshad waxay ku qancinaysay in uu caymiskaas ay galaan, kadibna hadhow faa'iido ay ka helaan markuu qof dhinta ama caruurteeda ka dhintaan. laakiin Mary iyada ma dhiman, ninkan ayaa dhintay, isagana isla maadadan ayuu ku sumoobay, wuu dhintay. Mary way baxay shirkaddii ay aaday, waxay soo qaadatay lacagta caymiska, waxay bilowday inaadan isaga baashaash lacagtaas, isaga tumato, nolosheeda iska wadato. haddana muddo kadib waxay baratay wiil lagu magacaabo James. marka James waa qofka keliya ee ka badbaadi doono Mary. sababtoo ah Mary waxay horey booliska ugu sheegtay in 4teeda nin ay geeriyoodeen. waxay dhahday kan 1, kan 2, kan 3 iyo kan 4 way geeriyoodeen. laakiin Mary beenteeda waay oo waxaa ka badbaaday kan 3 oo lagu magacaabo James, oo ah midkan hadda sheekeen doono. marka waxay isbarteen James marka waxay dhahday ka waran haddii aan caymis galno, adiga iyo aniga awlaadeena, si aan ugu baxsano oo aan hadhow faa'iido u helno. laakiin James wuxuu dhahay maya, aniga caymis iyo waxyaabahaas ma aaminsani, waxaana ka aaminsanay inay yihiin wax khuraafaad ama maalayacni ah ee iga daa. kadib Mary waxay dhahday waayahay. muddo kadib waxaa dhintay mid ka mid ah caruurtooda, macnaha waxay u joogtay 4 caruur, hal ayaa ka geeriyooday. kadib Mary James ay u laabatay, waxay dhahday makuu sheegin miya, saacan haddaan caymis gal lahayn waa faa'iidi lahayn, lacag ayaan heli lahayn. laakiin James wuxuu dhahay maya, aniga caymis iyo sheekada iguma socoto, caymisna ma galayo. Mary waxay dhahday waayahay. kadib waxaa dhintay cunugii labaad. haddana Mary isla sidii waxay dhahday waa ku sheegay, waa inaan caymis galnaa, saacan waa ku faa'iidi lahayn. James wuxuu dhahay wax caymis aan galay ma lahan, xitaa wuxuu dhahay hadday ciyaalkayga dhan dhintaan, caymis aniga shaqaan ku leeyahay ma lahan, mana gali doono. Mary waxay dhahday waayahay. muddo kadibna 2dii caruur ay soo hartay way dhinteen. 4 ay ahaayeen, 2 hore u dhimatay, 2 kalena hadda ayay dhinteen. kadib James wuu waashay oo wuxuu dhahay sababtay caruurteeda qaabkan ugu dhimanayaan maxay tahay. su'aalu isweydiiyey, wuxuu dhahay see camal midaa dhintay midka hadda 2dan. horta wuxuu dhahay islaantan waalan maxay tahay. wuxuu dhahay sababta aan aniga nolosheeda iyo cimrigeyga aan ugu dhammaysanayo Mary agteeda maxay tahay. islaan mushkilad badan, qof aan fahmin ay meele u socoto iyo waxay tahay. kadib wuxuu dhahay markii horeba aniga ayaa qaldanaa oo aan adiga guursaday, sababtoo wuxuu dhahay hore waxaa usoo dhintay ninkaaga, caruurtaada, adiga dhan waxaa tahay qof mushkilad badan, in aan ku guursanana qalad ayay ahayd. ugu dambeyn James wuu furay Mary, wuuna ka tagay. marka sidaa ayuu ku badbaaday James. macnaha caymiska wuu diiday, hadduu caymiska gali lahaa way u dhammayn lahayd, kadibna shirkadda caymiska waxay kasoo qaadan lahayd lacagta, sidaa ayay ku mashaaxi lahayd. adiga bilooyin kadib
markuu James qoftaan furay oo ka tagay, waxay baratay ninkii afraad oo ah kii u dambeeyey. isaga ayay baratay. marka ninkan afraad maxay ku samaysay isagana? ninkan marka hore waxay ka dhaadhicisay arrinta ceymiska. isagana wuu ku faraxsanaa, wuxuu dhahay waa arrin fiican, waan soo dhaweynayaa. adiga arrintii ayaa saaxiibkaaga la geliyey. waxay dhaleen caruur. muddo markii la joogay waxaa dhintay ninkii, macnaha ninkii afraadna wuu dhintay. kadib waxaa hal u dhimanayay caruurtooda, macnaha ninkan afraadna caruuray u dhashay. kadib markuu ninka dhintay, caruurtana hal ayuu dhimanaya, midkana dhimanayo, midkana dhimanayo, midkana dhimanayo. adiga ugu dambeyn waxay eberka siisay familkii dhan, waxayna soo qaadatay lacagta ceymiska. sidaa ayaa waxay ku baabi'isay familka, waxayna shirkadda ceymis ka soo qaadatay lacagtii. marka waxay sii gashay damaashaadkeeda, baashaalkeeda, inay lacagtaa ku tumato. kadib waxay ka guurtay meesha deganeed, xaafadii iyo magaaladii. adiga waxay ahayd qof marba meel u guura, si aan arrinteeda loo fahmin. ilaa nimankan dhintay iyo caruurtan iyadaa ka dambaysa, kulli waxa dilay iyada waay. marka si aan loo fahmin ayaa waxay u guuraysay marba magaalo, marba meel. marka xilliga oo ninka afraad ee dishay, lacagtan ay haysato oo marba meel ay u socoto, ayaa waxay baratay ninkan shanaad oo ay rabtay in ay guursato. arrinka guurkan ay diyaarinaysay, laakiin waxaa sikadiisa kusoo baxay wiilkan 7 jirka ah oo uu dhalay ninka afraad. macnaa ninkan afraad wuxuu ku dhalay naag kale. naagtii way dhimatay, ayadii haysay, ayadiidan way dhimatay. waxaa loo keenay Mary. marka Mary markii loo keenay kadib, ninkii shanaad waxay dhahday ma isguursan karno, wiilkan ayaa aniga nolosheeda kusoo biiray. marka ninkan isagana wuuba xanaaqay, aan isguursan, ma og in la dili rabo, ilaaha badbaadiyey. wuxuu dhahay wuu xanaaqay, isguursan, cunugan dhib ma laha. marka iyadaa dhahday maya isug ilaa aan cunugan ka koriyo waxyaabahaas. cunugan inay koris ma rabtee, way qaarijin rabtaa si isagana lacag ugu hesho. adiga cunugan markuu nolosheeda kusoo biiray, ugu dambeyn cunugan iyada ayaa sun cuntada ugu dartay, way sumaysay. waxayna ku sumaysay maadada zarniiq. adiga ugu dambeyn markii istaaka geysay oo cunugii la badbaadin waayey uu dhintay. kadib saan ognaa waxaa ka shakiyey mid ka mid a dhakhaatiirta, midkiyaa la baaray. kadib waxaa soo baxday in wiilka la sumeeyey oo dhimashadii si caadi in uusan u dhiman, oo waxaan sabab ay ka dambeysay. sababtan ay tahay in maadadan la siiyo cunugan. kadib booliska waxay weydiiyeen Maryn wax walba way inkirtay. marka middaa ayaa keentay in Mary nolosheeda iyo taariikhdeeda hore dib loogu laabto oo arrinteeda la baaro. sidaa ayaa keentay. marka sidaa ayaa lagu ogaaday Mary in ay waxaan dhan ay samaysay, in ninka koowaad, kan labaad, kan afraad ay ka takhalustay, awlaadeeda ay dishay. marka saaxiibayaal wax bayaan warka idin dheereenin. Mary waxay sidaa ku dishay 21 qof. macnaa 21 qof sidee ku dishay? marka 21kii ahaayeen oo sidee u dishay? Mary waxay dhashay 11 wiil. 11 wiilba iyada ayaa dishay. sidoo kale waxay dishay nimankii soo guursaday, kulli way dishay. bis waxaa ka badbaadiyay kii saddexaad, kan koowaad, kan labaad, kan afraadna iyada ayay ku maqan yihiin. sidoo kale waxay dishay 2 qof oo ka mid dariskeeda. waxay kaloo dishay wiil oo ay xoogaha boyfriend waxaas isla ahaayeen oo isbadbadeen, iyo dad kaloo badan oo qofba si ay kusoo xirigelisay. adiga Mary waxay dishay 21 qof. xitaa Mary xilligaas waxaa loo diiwaangeliyey in ay ka mid tahay dilaayaasha ugu caansan xilliga. maas deetmeydii marka waxaa loo diiwaangeliyey in ay tahay qof dilaayad ah. waxayna mar walba isticmaalaysay oo ay dadka ku dilaysay maadadan lagu magacaabo zarniiq. marka waxaa laga yaabaa in aad qaarkiin isweydiisaan ama isdhahdaan, niyow qoftaan markay intaan qof dilaysay qof fahmay malahan miya, oo hal qof xitaa arrinteeda ma ogaanin,
ama ma fahmin miya in qoftan macnaha qof ka sheekeeya ma jirta miya. dabcan su-aal waaye laakiin ana idinkaga jawaabay. adiga xilliga magaalada London maadadan zirniiqa oo hadda dad badan ay ku dishay Mary waxaa loo isticmaalayay in waxyaabaha lagu sameeyo, sida in lagu sameeyo alaabtay ku ciyaaraan caruurta, alaabtan plastic maaragtay ilmaha ku dhiilaan kow, iyo waxaa lagu sameynayay warqadahan darbiga lagu dhigsaday waxyaabahaas iyo waxyaabo kale iska caadi ayaa adiga waxyaabahan shirkadaha markii lagu sameeyo maadadan waxyaabahaas ayaa lagu sameynayay waxay ahayd maada iska caadi ah. kadib waxaa soo baxday xaalado badan oo dhimasho ah. waxaa la arkay ilmo badan inay dhinteen. markii la baareen waxaa la ogaaday ilmaha in ay ku dhinteen oo macnaha dhimashadooda ay sababtay kadib markay alaabta ku ciyaareen, alaabtan ay ku samoobeen, sidaan ay ku dhinteen. marka alaabta maxaa ku jira? alaabta waxaa ku jirtay maadadan zirniiqa waa alaabta lagu sameeyo. marka maadadii ku samoobeen sidaa ay caruurtii ku dhinteen. kadib iyaga dhan waa la kansalay in wax lagu sameeyo, mamnuuc ayaa laga dhigay sababtoo waxaa soo baxday in ay maadadan sun tahay, dad badan ay dili karto ama ay dishaybo. xitaa waxaa jirtay dhacdo kaloo caan ah oo lagu magacaabay ku samoowida xalwada Brentford. adiga waxay ahayd xalwo oo lagu daray maadadan zirniiqa. marka maadadan si kas ah ma loogu darin, si qalad iyo waxyaabahaas ayaa loogu daray. markii xalwadaas la cunay kadib waxaa ku dhimatay 15 qof, 200 qof kalena way saameysay oo affect ay u geystay laakiin maysan ku dhiman. idan dhacdo kaloo caan waaye oo ka dhacday magaalada Brentford. marka adiga maadadan iyadan waxaa la ogaaday in ay maada sun tahay, waa laga kansalay magaalkii dhan. marka malfilin maadadan in la isticmaalo doono ama uu qof kale ku sameyn doono ama uu ku sameyn karo. marka sidaa ayaaba looga shakin Mary in maadadan ay isticmaashay waxyaabaha. sidoo kale xilligaa fiiri ma jirin wax teknoloji casri ah, ma jirin kaamira duubeysa in Mary ay ilmaheeda dishay, nimankii ay guuristay iyada ay dishay. haddii lacala haddii kaamira jiraan lahaayeen xaafadii waxaa ku xiran kaamirooyin iyo waxyaabahaas, dabagaal la sameyn lahaa iyadoo maadadan cuntada ku dareysay, waxyaabahaas waa la ogaan lahaa sax. laakiin xilligaa wax teknoloji casri iyo dabagal badan ma jirin, sidaa ayaa lagu ogaan waayey Mary oo xitaa lagu shakin waayey. midda labaad waxay tahay markii cadeemihii loo keenay Mary oo la tusay cadeemaheeda dhan, arrintii ay ku fashilantay markaan wax walba caddahay. kadib Mary waxay bilowday inay qosasho, weliba iyadoo hortaagan dadkii kasoo qayb galay maxkamadda, oo waxay dhahday haddii fursad kale la siin lahaa waxaa ka faa'iideysan lahaa nimanka horteeda taagan. maqlaya macnaha waxay dhahday haddii fursad kale la siin lahaa nimankan ayadan waqtiga la qaadan lahaa, dhimashadoodan waa ka faa'iideysan lahaa oo lacag ka sameyn lahaa. marka qoftan waxay dadka u dileysay, awlaadeedii ay u dishay, nimankii soo guursaday ay u dishay, waxay ahayd lacag darteed. macnaha lacagtan ay ka helaysay caymiska bis ayay u dileysay nimankan oo dhan. haddana waxay dhahay jans deleysiin lahaa nimankan way takhalusi lahaa. Mary marka dadka maxkamadda fadhiyay way yaabeen, waxay qoftan qof waalan miya? waa la waday, waa la soo baaray. kadib markii la soo baaray waxaa la dhahay qoftan qof ka caqli badan ma jiro oo maskaxeeda waa nadiif, qof waalan ma ahan. waxay sameyseen kas ay u sameysay oo hadda waxay dhaheen dilkan ay geysatay iyo waxyaabahaas wax bayaan marmar si loo raadin, wax walba iyada ay ka mas'uul ah, kas ayay u sameysay oo waxay dhaheen maan qof iyo waay, wax walba waxay u sameysay si ula kaca. adiga wax bayaanan wararka idinku daalin. Mary waa la xukumay oo waxaa lagu xukumay dil toogasho. dabcan xukunkii waa lagu fuliyey Mary oo Mary iyadana sidaa ayaa lagu dilay. marka saaxiibayaal sheekadeena ama muuqaalkeena caawa inaga inta aynu muuqaalkii dib u kulmi doono. amaana alle. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.